Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaa jirta in dad badan ay gadaashaada ama adigoo maqan ay kaa daba hadlaan ama ay ku xantaanba. Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxay dadku gadaashaada uga hadlaan ama adiga oo maqan ku xantaan ama wax kaa yidhaahdaan ee marka aad hor joogto ama marka ay kaa maqan yihiin labadaasi u kala duwan yihiin. Sababta ay dadku gadaashaada uga hadlaan ama ay ku xantaan waa 3 sababood midkood. Sababta koowaad waxay tahay qofka haddii uu kaa hooseeyo heer ahaan buu kaa hooseyn karaa, shaqo ahaan buu kaa hooseyn karaa, nolol ahaan buu kaa hooseyn karaa. Waxaa dhacaysa gadaashaada inuu ka hadlo. Qofku marka haddii uu nolol ahaan iyo heer ahaan iyo martabad ahaan iyo mansab mid ka mid ah hadduu kaa hooseeyo waxaa dhacaysa inuu gadaashaada ka hadlo ama adigoo aan joogin oo maqan uu gadaashaada ka hadlo. Lambar 2 qofku marka uuna haysanin waxaad adigu haysato gadaashaada ka hadlaya ama adigoo maqan buu ka hadlaya. Waxaad haysato isagoona haysan noocooda wax kasta uu noqon karaa. Marka qofku markuuna haysanin adigu waxaad haysato waxaa dhacaysa inuu qofku gadaashaada ka hadlo ama adigoo maqan uu qofkii wax kaa sheego oo ku xanto. Lambar 3 qofku markuu isku dayo inuu koobiyeeyo ama uu sameeyo adigu waxaad haysatid ama waxaad samaysid ama waxaad qabatid balse uu awoodi kari waayo waxaa adigu aad samaysid ee uu koobiyeeyay inuu qabto waxaa dhacaysa gadaashaada inuu ka hadlo. 3 qodob ayaa inta badan keena qofku marka uu gadaashaada ka hadlayo ama ku xamanayo ama kaa daba hadlayo. Qodob koowaad wuxuu yahay qofkoo kaa heer hooseeya ama qofkoo nolol ahaan kaa hooseeya ama shaqo ahaan. Qodobka labaad wuxuu yahay qofka oo aan haysanin adigu waxaad haysato. Qodobka 3aadna wuxuu yahay qofka oo isku daya inuu koobiyeeyo adigu waxaad qabato ama haysto laakiin uu awoodi waayo. 3 qodob ay yihiin waxaa jeclaan lahaa asxaabtii in la wadaagtaan aad u mahadsantihiin.